daawade haddii aad ku cusub tahay channelka Ilays News fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada xaqiiqada ku salaysan ee aanu sida joogtada halkan idinkula wadaagayno maayirka magaalada Boorama Saleebaan Xasan Xaddi oo maanta ka hadlay munaasabad qada sharaf ah oo beesha degta gobolka Hawd iyo xaafadda Axmed Dagax ee magaalada Hargeysa ay u sameeyeen ka cusub ee beelaha Somaliland Suldaan Daawud Suldaan Maxamed Suldaan Cabdulqaadir ayaa waxa uu sheegay in caasimadda labaad ee Somaliland ay tahay magaalada Boorame balse hadalkaasi waxa si kulul uga jawaabay oo hadalka ka daba qaatay Suldaan Sabayse waxaana uu sheegay in caasimadda labaad ee Somaliland ay tahay magaalada Burco oo ay dastuurka ku qoran tahay isla markaana reer Boorame aan looga baahneen in ay muran geliyaan magaalada noqonaysa caasimadda labaad ee Somaliland waxaana hadaladoodii ka mid ahaa marka hore waxaan u ducaynayaa arab reerka arab sheekh saxaad ee sameeyay casuumadda aad quruxda badan markaan imika soo fadhiistay baan dadka farahoodii ka yaabay dabeedna waxaan isiri war mala qadadiba ku soo gaari mayso haddana markii la bilaabay intii meel fadhidaba neef dhan baa loo dhiibay nin aan imika awlale iyo ilaa dhabar iyo aan kun cad cunuguma jiro waxaan hoosta ka labay ahaydo caasimadu way tartamaane meesha Jabuuti baa ku tartamaysa haddii Hargeysa iyo Jabuuti la eegana Hargeysa lambartuu bay noqonaysaa dadka inta kale beeraash ka taqaana ee lambaruun waa Jabuuti marka ganacsadaha sameeyay iyo meesha lagu sameeyay iyo arab sheekh saxaab intaba waa mahadnaqay mid labaad baan ku darayaayo Suldaan Maxamed Suldaanka guud ee Somaliland buu ahaa reerku ugu dhawaan la saaxiib ahaan arab buu ahaa waa marka run ugu wada hadlo cidda la fadhiisata ee u dhow ee uu ay iska xaaloobiyiin Suldaan Maxamed waxaan arab Suldaan Daawud waxaan leeyahay bahashaadu si ay u tusqaado horta arabka warhay koow ka bilow dadkan kale ama kuwa ku abtiyaha ku noqdo ama mid ku dhalay ha noqdee iyagana midigta ku hay dadka inta kalena bidixda isugu geey Suldaan Daawud intaasaan oran lahaa midka kale meesha ka hadlaya waxa weeye oo hadalkaaba igu kalifay suldaanka ee abtiga ah ee imika hadlayay hadalkiisii ayaan isiri haddaad ka daba tagi weydo reer Boorame berri waxa Jabuuti bay geli doonaan marka waxaan leeyahay war waxaynu nahay majority-ga Somaliland waxa weeye suldaanka iyo madaxweynaha iyo cid waliba waa inay ilaaliso cidda marka adiga majority-ga ku arkaysa xamar waxaynu kaga tagnay wax kale maaha way naga farbadnaayna wayna liqayna wixiiba way qaateen haddaynu inaguna dee Boorame liqno dee waxba ma hagaagayaan marka waxaan leeyahay Burco waa magaaladeeni war lambartuuga Boorama la siinaya lambartuuga haddaad doonaysaan in Somaliland tan aynu rag agnaa hagaagto halkan nin dhulbaantaaba ka hadlay wuxuu yidhi hadalkiiba waa wada qaadanaysaan oo xanaaqsan Boorama waxa leedahay magaalada hadii qaadan maysid dadka yay nagu soo haraya markaa ma isaga dad ay xabtaan waxaan leeyahay abtigayna arinta aniga ka daba yimi abtigayu hadalkaas uu ka dhacay ana xaal ka bixiyay Burco way joogaysaa hadii Hargeysa magaalada hadii Boorama noqonaysaa haddaad doonaysaan inuu hagaagaan saasaan leeyahay reer Boorama waxaan leeyahay idinkuna aamina inta yar ay samaysadeen Somaliland aad u hambalyeynaya halka ninkiisa soo taagay muxuu ahaa arninkii odaga ah xillibaanka doonay barxad walla waan ragay hadii madaxweynuhu uu oran la kaasina waa abti kaasina waa habaryartay kaana abti baan u ahay dadkuba uu isku xirmila warninkaan xildhibaanimadiisa laga warahayo reeriyo dhan mid banac ka sheegtaa salaamu calaykum aad ayuu maasiyay Chief Cabdirasaaq Askar waxaan